قف باكو إيماني علوش وحنون يسوي بستي أو مسقول بها خشي بوجلي لعقت مركو كسينا يوح كل هو شقاء تن أنت إلهها كسيه تاني واحد لقى شقية ما هي هو بدي هذا لكن مركي كوسورة قش واحد كلا رات هذا هدو سميشه هل هاي قن كاسينو اسكو حار لها بالغيابة تو ما بنوران كرقف بأسولي لا إنه إيمه هذا علياهد ورنها إنه إيمه هذا عليو أيه هيدو بياهد مركا waxyaabaha la yaabka ah ee shaqada haddana aan ka soo arkay waxa kamid ahaa nimanka Itoobiyaanku moogtay way la xajeclo badan yihiin toban riyaal baa meesha lagu gali jiray nin baa meesha gali uu soo bixiyo wuxuu ku dhigay ani shan iga qaad waan ka jikaliye war meeshan kaadi iyo ma kale wax kale kaadi iyo neefti wax kale waa isku lacag inuu iska bixi lacagta kuma kareysay waa shinti bijaana uu kulay mid baan dili gaaray maalin warkar ayo garac u dhalay lacagta iska bixi anigu haa iyo shintii waxa ma kala guree meeshan hadaad mar gasho wad gashay waa sax sheeko waxay soo xasuusay nin xamaam muqdisho ku leh yaa hadda ka hor nin baa meeshiisa galay oo markaas uu yiri abawe xabeega ma iman buu yiri kii xamaamka lahaa oo ciyaal suuqa ahaa wuxuu yiri tus dabada hadu inay qalalan tahay ya marka shaqooyinka noocaas oo kala markaad ka shaqeyso waa dhibaato socoto weey waxa laga yaabaa sadiqow yurub markii la joogo wadamo waxaa jira moogtahay suuliyada inta badan aan firyahayn waxaa ka mid ah markaad safrayso kale dalka Jarmalka haddii aad safrayso meelaha kaalin maashidaalka ee Sweden oo kale waa iska firiy laakiin Jarmalka markaad suuliyada wadooyinka lagu safray aad gasho meelaha qaar waa inaad lacag ku rido suuliga waa inaad lacag ku furato waan arkay bir baa ku qabanaysa lacagta markaad ku rido isfuri waa sida nafta hadii ka dadkeenu ma geli kartaa dadkeenu waxay u haystaan dadka ninka intuu iska gale ku leh shaqo kale la ku saan